فضلا سي قيبية برنامج كان حيسها له oo title-kiisa uu noqday Soomaalida qaar ee cadowga u heelisa barnaamijkan sababta uu sameeyay waxay tahay war aan isdhihi karo waa kii ugu muhiimsanaa ka soo baxay dowladda Soomaaliyeed tan iyo intii la doortay Febraayo 2017 intii la doortay warkan haddii aan idin akhriyo war sidaa u dheer maahan laakiin micno weyn ayuu leeyahay marka waxa idinka codsanayaa si qaybiya si asxaabta kale ee iminka Facebook ku jirta ay warkaan warmurtiyeedka galabta ayaa waxaan soo dhigay wallkayga waxaan filayaa inaan ahay qofkii ugu horeeyay ee soo dhiga markuu ii soo dhacay runtiina dadka intooda badan waxay moodeen inuu yahay fake inuu yahay waayo qaabka u qornaa laakiin waan soo xaqiijiyay anoo soo xaqiijin ma aanan soo gelin markii dambana qof walba uu sii qaybiyay waana war saxaafadeed soo baxay maanta oo taariikhdu ay tahay 20 bisha 6 2019 marka waan idin akhrinayaa dad waxa laga yaabaa iga daawan doona insha Allah YouTube oo aan haysan Facebook saa awgeeda dadkaas ayaan u akhrinayaa si ay ogaadaan waxa dhacay marka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxay soo saartay xafiiskeeda wasiirka waxay ka soo saartay waraaq aad muhiim u ah waxay leedahay dadkaan u akhrinayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed ku wargelinaysaa in ay u taagan tahay oo ay gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga ah oo ay ugu horeeyaan ilaalinta qadiyadda masiiriga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saas hadalka ayuu ku bilowday waxa ku xigay beryahan dambe marka hadalkan si fiican u dhageysta sababtoo ah far iyo meel bugta ayaa is-og ayay Soomaalidu ku hamada mastaqaana waxay ahaataba marka waad ogaanaysaan sheekada meesha ku socoto haddii aan indhaha la iska tirin beryahan dambe waxa soo ifbaxaysa mas'uuliyiin haya xilal ama kuwa soo hayn jiray ha ahaadaan heer federaal ama heer dowlad goboleed iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya ficilo dhaawac ku ah qadiyadda lama taabtaanka ah ee qaranka Soomaaliya marka hadalkaas waa cad yahay qaybta ugu dambaysan waan idin akhrinayaa marka waan ku soo laabanaynaa dowladda waxay qaadaysaa tallaabooyin waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala kuwaasoo oo lagula xisaabtamayo shakhsiyaadka iyo mas'uuliyiinta ay ku cadaato in ay ka shaqeynayaan garabsiinta cid walba oo damac kaga jira xuduud dhuleed iyo badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dadka laga hadlayo ma ahan ajaanib ma ahan Kenyaati ma ahan Ethiopian ma ahan Imaaraad ma ahan Carab kale ma ahan Soomaali ayaa laga hadlayaa Soomaaligaas oo ah adiga iyo aniga ugu dambeys waxay tiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliya mar kale u xaqiijinaysaa inay u taagan tahay ilaalinta midnimada madax banaanida iyo dhaxalka jiilasha dambe ee 100 sano 200 sano marka caawna insha Allah waxaan kala saaraynaa micnaha ay tahay dowlad iyo qaran iyo wadan wuxuu ahaadaba waxayna cadeynaysaa inaanay marnaba ogolaanaynin fal kasta oo dhaawacaya qarannimada ummadda Soomaaliyeed way soo afjareen marka warmurtiyeedkan waqti badan ayaa dowladda laga codsaday oo la sugayay dadkan laga hadlayana qof walba caaways ogay qofka laga hadlay waraaqaha waa la faafiyay waana la arkay marka qofka aan qaranka Soomaaliyeed waxba dhibaataan u geenin waxaan ka hadlaynaa Kenya iyo Ethiopia waxa laga yaabaa in damiirkiisu uu fiican yahay oo si fiican u seexan karo laakiin dadkan kale way is og yihiin marka arrintan maxaa keentay ayaamahan dambe soo la socotaan warbaahinta dowladda iyo shacabka Kenya waxay wadeen dagaal ay ka dhiman tahay oo kaliya in xabad isku tuuro ama gantaalo ama diyaarado kaasoo ah diyaarad ironically wadankan way u isticmaalaan dagaalkaasoo ahaa in ay soo dhowdahay dhowr bilood ay ka hartay November xilliga lagu dhawaaqayo oo qof walbana uu og yahay Soomaaliya fursadeedu inay tahay 99.9 ay tahay saa awgeed waxay heleen dad Soomaali ah idinkoo kala anoo kala Soomaali ah oo markaa garab ku siinaya in qaranka Soomaaliya la dagaalo marka waxaan rabaa hees waxa jirta
fanaaniinta Soomaaliyeed ay ku luqeyn jireen marka waxaan rabaa dadka da'da yar dhalinyarada ah qabiilka laga dhaadhiciyay xumaatada laga dhaadhiciyay in bal xogaa education ama waxbarasho yar aan siino heesas waxaa la dhihi jiray waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale marka hees way sii soconaysaa marka caaw waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee mustaqbalkooda la doonayo in lagu ciyaaro bar inaan u sheego dalkan Soomaaliya la yiraahdo haddii ay idinka dhaadhiciyeen dad qaarkood inay leeyihiin farmaajo iyo kheyre caawa waxaan halkan ku caddeynaa farmaajo iyo kheyre male waddankan Soomaaliya waxaa kaloo caawa idin caddeynaya kuwa baarlamaanka ku jira ee xildhibaanada ah iyo senatorada ah waddankan male xisbiyada mucaaradka waddankan male kuwa ah madaxweynayaasha dowlad goboleedka lixda ah waddankan male waddankan waxaa iskale Soomaali oo dhan ayaa iskale waxaa lahaan jiray Soomaalidii dhimatay qabuuraha ku jira waxaa lahaan doona Soomaalida kunka sano haddii adduunyada ay gaarto ay soo socoto ayaa iskale marka dadka markay dantooda qaaska ah ay waayaan ama dowlad goboleed ha ahaadaan ama wasiir ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado uu ka dhaadhiciyo dadka Soomaaliyeed si aan Kenya waxaan garab ugu siinayaa Kenya inaan la dagaalo farmaajo iyo kheyre marin habaabis ayay wadaan qabiil ayaa ka dhex guuxaya waxay doonayaan title-koodii ay doonayaan privilege-ka ayay doonayaan short term ayay doonayaan ninka maanta wuxuu doona ha ahaado meeshuu doona ha joogo Kenya garab istaaga gar iyo gardarro qofkaas inuu Soomaali ahaado uma qalmo ama isku cid ahaada ama kala ahaada ama adeerka ha ahaado ama wuxuu doono ha ahaado haddii aad ku taageertid hal doon ayaad isla saarantiin marka waxaan ka hadlimayna marka dadka waxaa lagu qalday oo kaliya la yiri sababta aan Kenya aan u garab istaagay aan u leeyahay Kenya iyo arintan in xal lagu dhameeyo xal hoosaad odayaal ay ka wada hadlaan lagu dhameeyaa sababta u leeyihiin waxay u arkaan wixii ay doonayeen ama siyaasadii qalifsanayd ee Soomaaliya in dowladda federaalka ay ka waayeen mar kale aan ku celinayaa kheyre iyo farmaajo iyo baarlamaanka senatarada kuwa gobolada jooga male Soomaaliya adinka iskale aniga iskale waa wada leenahay iyagana waxay ka mid yihiin rag maaragtay waqtigooda uu jiro una dhamaanayo rag dhiman doona insha Allah saanu dhiman doono marka ay dowladda Soomaaliyeed ay leedahay oo runtii qof walba oo aqli leh oo Soomaali inuu ku taageero ay tahay waxaan dhihi karaa waraaqdan galabta ii soo dhacday waraaq ka qiimo badan oo wili indhaha aan saaray ma jirto sababtoo ah sharci kala sarayntii haddii loo adeegsado qof walba adduunka meel laga yeelay ma jirto waddanka Mareykanka oo ah hadda waddanka adduunka ugu quwada weyn oo waddan horumare ah qofkii lagu qabtay traitor ma xariga la saaraa qorta laga daldalaa traitor qofku yahay sababtoo qofku markuu traitor ku yahay ama waddankiisu uu ku noqdo noocan oo kale uu la safto cadow sababtoo maanta qofka doonaya in baddaadii dhulkaaga uu dhaco waa cadowga ninkii la saftay qofka Soomaali ma noqon karo mas'uul ma noqon karo qofkii ku taageerna waa la mid yahay marka hadalka ugu muhiimsan ee meesha aan ka soo qabsaday wuxuu ahaa dowladdu waxay qaadaysaa tallaabooyin maaragtay waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dowladda ma dhihin hebel baan soo xiraynaa meeshaan ma ahan Masar ma ahan meeshaan ma ahan Sacuudi ma ahan Imaaraat ma ahan meeshaan ma ahan waddankan waa waddan sharci leh dimuqraadi leh dhib ku jiro laakiin Kenya pressure cadaadis aad u weyn ayaa saaran cadaadiskaasoo ah in badda aysan doonin in laga guulaysto oo yiraahdeen it will be disaster ay yiraahdeen loo guulaysto waayo way ogyihiin waa wax sharciyan oo pending ah hadday pending noqotaan waa looga guulaysto wayna dhamaatay gal ayaa la gelinaya marka su'aasha meesha taalo waxay tahay baarlamaanka jaamacadda carabta Kenya waxay u sheegay inay ku xadgudbayso qarannimada Soomaaliyeed hadda waxa soo socota jaamacadda carabta inay ka hadlaan African Union inay ka hadlaan ilaa marka dambe hadda iyaga ay doonayaan Kenyaatiga in United Nations Security Council ay geeyaan ay doonayaan si baddan xal masuur lagu dhamay oo pressureki socon waayay xildhibaanadii senatoradii safaradii wixii dhan la joojiyay oo la yiraahday xuduudkan xiraynaa xuduudkan darbi ku dhisaynaa waa socon waayay marka hadda waxa la helay rasaastii iyo gantaaladii ugu dhibka badnaa ayaa la helay maxay yihiin Soomaali ayaa la helay marka Soomaaliga ani lama yaabayo Soomaali Kenyaatiga ah ee xildhibaanka ka waa dhihi kara waddankiisa meeshuu ku nool yahay uu ku dhashay ha difaaco kulli waa Soomaali ka difaac haduu doona Kenya laakiin ninka maanta
xil hayn jiray sida meesha lagu soo qoray ma soo qoran ama xil hayn jiray ama xil hadda haya oo maanta Kenya garab istaagayo oo leh arrintan Kenya waddan daris ah ereyga isticmaaleen oo aniga oo depressionka madax xanuunka igu riday wuxuu ahaa Kenya annaga waxaan ahay dad daris ah oo xuduud naga dhaxeeyo ilaahay daris naga dhigay waa runtooda daris baan nahay xiriirkan waa inuu wanaagsanaada xiriirka annaga Kenya weligiis ayuu shaqeynaa haddii baddeen ee dhulkeena oo jiilka annaga oo nooga dhintay annagana aan uga dhiman doono ay Kenyaati ay soo galayaan oo ay xadayaan weligeed daris aan ahayn ilaahay badana kala dhaxmariyo